السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحالي هذا ميج بشير اللي بانك لغا soo doortay gobolka Mandera North. maanta waxaan rabaa inaan dadka ku nool gobolka iyo Kenya idilbiran ugu baaqa aan ku dhiirigeliyo arrimaha hadda ka socdo oo ku xisaabsan coronavirus. waa ogtihiin coronavirus inaan soo galay Kenya soo gaaray wadamo badan soo galay mar hore haddana Kenya sotos noo soo galay. waxaan rabaa arrimo inaan ugu baaqo dadkii gobolka nool si ay cudurkan ula dagaalamaan insha Allah bidnillahi kariim oo qof anaga naga midna lagu helin. ugu horeyn waxaan rabaa inaan dhaha gacmaha waa in la dhaqdo oo saabuun lagu dhaqdo mar walba. midda labaad gacmahaada inaad ka ilaaliso indhaha, sanka iyo afka. cidda inaad joogto haddaynan wax sabab ama degdeg ku kalifaynin waa inaad cidda joogto. markaad qufacayso waa inaad si toos dad kula joogo aad ku qufcin ama afkaada gacanta ama maro inaad saarato. midda kale haddaanad ogtahay dad cudurka qabo ama lagu tuhunsan yahay waa inaad ka fogaato. midda kale waxaan leeyahay cudurkan qof walba wuu ku dhici karaa. degmo ma garanayo, qabiil ma garanayo, diinna ma garanayo. muslim wuu ku dhacay, kristaan wuu ku dhacay, dad hadda diin lahayn waa ku dhacay. marka muhiimku waxa waaye in la dhihin muslimiinta kuma dhici karo ama degmo oo qoraxda ay kuleel tahay lagama helayo. arrimahaas waa arrin been. waa inaad ogaataan haddaad muslim tahayna waa kugu dhaca, haddaad meel joogto oo kuleyl haddaad joogtana wuu kugu dhici karaa. so waxay ku xiran tahay inaad iska ilaaliso arrimaha nadaafadda inaad ku dhiirigeliso oo ku dadaasho. midda ugu dambeys waxa waaye dowladda nationalka iyo dowladda countyga arrimo badan bay soo bandhigeen. arrimahaas waxaan dadka u leeyahay inay arrimahaas oo dowladda soo bandhigtay waa inay gacan ku siiyaan annaga idilna insha Allah bidnillahi kariim sidaan ugu baadi lahayn cudurkan cusub oo coronavirus. wabillahi tawfiiq.